Assalaamu calaykum, waa Samsam Xasan. Maanta waxaan wax ka sheegi doonaa faa'iidooyinka ay leedahay huruudda. Huruudda waxaan u naqaanay in loo isticmaalo kaliyaata in la ismariyo oo qurux laga dayo ama badanaa dumarku ay isticmaalaan, laakiin huruudda waxaa ku jira caafimaad badan oo aynan ogeyn ama faa'iidooyin badan oo inaga qarsoonaa. Huruuddu waxay wax ka tartaa cudurrada ku dhaca wadnaha ayay daweysaa. Huruuddu waxay ka hortagtaa cudurka kansarka la yiraahdo. Huruuddu waxay wax ka tartaa ama ay daweysaa cudurka lafa xanuunka ama rheumatism-ka. Huruuddu waxay daweysaa cholesterol-ka ama subagowga ku dhaca dadka. Huruuddu waxay wax ka tartaa macaanka. Huruuddu waxay tahay painkiller ama xanuun baabi'iye ahaan ayaa loo isticmaali karaa. Huruuddu waxay dhaydaa nabarrada ama gubashada. Huruuddu waxay dawo u tahay calool ololka, casiraada caloosha, sidoo kale shubanka. Huruuddu waxay dawo ka tahay xanuunada ku dhaca maqaarka sida cambaarta. Huruuddu waxay dawo ka tahay xanuunada ku dhaca kalyaha iyo beerka. Insha Allah ka faa'iideysi wanaagsan adiga oo malgacad huruuda ku darsanaya koob caano ah aroor walba haddii aad cabto faa'iidad iskaga dareemi doontaa in muddana waad ku wadaysaa insha Allah ka faa'iideysi wanaagsan.